filimka waxa uu ku bilaabanayaa nin da' dhexe ah oo lagu magacaabo Gulliver kaas oo kasoo toosaya guri cidlo ah oo ku yaala magaalada New York. Gulliver waxa uu bilaabayaa shaqadiisa caadiga ah, waxa uuna ka shaqeeyaa shirkad warbaahin oo soo saarta mid ka mid ah wargeysyada ugu caansan magaalada New York. Maalintaasi waxa uu la kulmayaa shaqaale cusub oo lagu magacaabo Dan, wuuna la saaxiibayaa. Intay wada shaqaynayeen waxay arkayaan gabar wariye ah oo uu muddo dheer jeclaa, taas oo lagu magacaabo Darcy. Muddo sanado ah ayuu jeclaa laakiin iyada ma oga. Isla galabtiiba Dan waxa uu tusayaa warqad muujinaysa in isla maalintii ugu horreysay ee uu shaqeeyeyba la dalacsiiyey, uuna noqday madaxa qaybta uu Gulliver ka shaqeeyo. Gulliver 5 sano ee uu halkaasi ka shaqaynayay wax ixtiraam ah lama siin, lamana dalacsiin. Dan ayaa waxa uu ku tilmaamayaa Gulliver inuu yahay fulay ka baqaya inuu hadlo oo xaqiisa dhacsado, sidaasi darteedna uusan noloshiisa heli doonin wax dalacsiin ah. Gulliver oo niyad jabsan ayaa ka soo baxay xafiiska, waxa uuna arkay Darcy oo wili shaqaynaysa. Waxa uu iska raadiyey geesinimo, waxa uuna ka codsaday inay raacdo, laakiin markay soo fiirisay waa uu ka cabsaday. Markiiba waxa uu isku boojeeyey warqad saarneed miiska dushiisa. Darcy oo fahamtay inuu cabsaday ayaa weydiisay haddii uu doonayo inuu codsado shaqo dalacsiin. Gulliver waxa uu qaatay warqadda, wuxuuna ku haminayaa inuu helo dalacsiin, laakiin si uu dalacsiintaasi u helo waa inuu soo qoraa warbixin ku saabsan safarka iyo dalxiiska. Waxa uuna ku noqonayaa guriga, waxa uu bilaabayaa inuu warbixintaasi qoro. Waxa uu internetka kasoo guurinayaa maqaalada safarka ka hadlaya si uu usoo qoro warbixin dhammaystiran oo ku saabsan safarka iyo dalxiiska. Maalintii xigtay warbixintii uu soo diyaariyey ayuu usoo gudbiyey Darcy, taasoo ay aad ula yaabtay sida quruxda badan ee uu usoo diyaariyey. Waxayna ku fikirtay inay siiso fursad kale oo uu kusoo muujin karo kartidiisa, sidaasi darteedna waxay u sheegtay inuu u safro Bermuda oo ah meel halis ah, si uu halkaasi uga soo diyaariyo warbixin ku saabsan maraakiibta halkaas ku quusta. Si uu qalbigeeda usoo jiito, Gulliver uu ogolaaday, wuxuuna qaatay halistaas. Darcy oo aad u faraxsan ayaa u raadisay doontii uu raaci lahaa. Gulliver waxa uu aaday magaalada ugu dhow ee uu kasii aadi karo Bermuda, waxaana halkaasi kasoo qaaday nin meesha degan, kaasoo geeyey halkii uu doonta ka raaci lahaa, waxaana la tusay qaabka doonta loo wado. Laakiin halka uu u socdo waa meeshan oo ay ku nool yihiin dad aad u yaryar. Saacado kadib waxa uu la qabsaday doonta, waxa uuna bilaabay inuu safarka ku raaxaysto, isagoo iska akhrisanaya joornaalo iyo buugaag ku saabsan sida robot loo dhiso. Markii uu daalayna wuu hurday, waxa uuna soo toosay isagoo dhexda uga jira mawjado iyo duufaan badda dhexdeeda ka socota. Wuxuuna bilaabay inuu xirto jaakada dabaasha, wuxuuna arkay libaax badeed isaga kusoo wajahan. Intaasi wixii ka dambeeyey wuu miir daboolmay, kadibna doonta iyo isagaba waxaa loo soo jiitay bariga. Markii uu Gulliver dib u furay indhihiisa, wuxuu arkay jirkiisa oo aan dhaqaaqi karin, wuxuuna soo toosay isagoo xirxiran. Hoos ayuu fiiriyey, waxa uu arkay dad aad u yaryar oo isaga jirkiisa ku dul ciyaaraya. Hogaamiyaha kooxdan yaryarka ah ayaa loo geeyey, waxaana lagu xirxiray xarig iyo alwaax si uusan uga fakan, iyagoo aad ula yaaban inta uu la eg yahay. Taliyaha kooxda iyo ciidankiisa oo dul saaran xabadka Gulliver ayaa ugu yeeray kani waa xayawaan weyn, waxayna ku xirxireen xarig. Mid walba oo ciidankiisa ka mid ahna waxa uu hayaa xarigaasi, balse Gulliver oo la yaaban ayaa bilaabay inuu qayliyo. Waxa uuna si fudud u jarjaray xarigii ku xirnaa, waxaana kala faniinay ciidankii oo dhan. Edward oo ah hogaamiyaha kooxda ayaa amray in ciidankiisa ay xayawaankan weyn hoos u soo dejiyaan. Ciidanku waxay mar kale xarig ku xireen surwaalkiisa, wayna jiideen ilaa uu dhulka ku dhacay. Markii uu soo toosayna, Gulliver waxa uu arkay inuu ku xirxiran yahay gaari weyn oo la jiidayo, waxaana loo sii wadaa dhankaas iyo qasriga boqortooyada. Dadkii yaryaraa ee magaalada ku noolaa oo dhan ayaa guryahooda ka soo baxay si ay u daawadaan xayawaankan weyn ee lasoo qabtay, waxaana loo geeyey boqorka. Gabadha uu boqorka dhalay ee Princess Mary ayaa u muujisay naxariis, waxayna weydiisay taliyaha ciidanka, maxaad waxaan oo xarka ah ugu xirxirteen? Taliyaha ayaa Gulliver ku eedeeyey inuu yahay nin xoog badan oo aan la qaban karin, isla markaana uu noqon karo basaas ka socda boqortooyooyinka cadowgooda ah ee deriska la ah. Ugu dambeyn, Gulliver waa uu hadlay, waxa uuna weydiiyey boqorka meesha uu joogo. Xogayaha boqorka oo lagu magacaabo Ching ayaa u sheegay inuu joogo meel jasiirad ah oo boqortooyo weyn ah. Kadibna waxaa loo sii gudbiyey god weyn oo xabsi ah, wuxuuna halkaas kula kulmay qof kale oo meesha ku xiran oo ka mid ah dadka yaryarka ah ee jasiiradda ku nool, kaasoo lagu xukumay xabsi dheer kadib markii uu isku dayay inuu la haasaawo Princess Mary oo ah gabadha uu dhalay boqorka. Markii dambe waxa uu yimid taliyaha,
waxaana labadooda loo soo kaxeeyey beerta boqortooyada si ay halkaasi uga shaqeeyaan. Gulliver waxaa lagu qasbay inuu jiido gaariga uu taliyaha saaran yahay. Isla waqtigaasi kooxo kale oo boqortooyooyinka yaryarka ah ayaa soo weeraray qasriga iyagoo raba inay afduubtaan Princess Mary, waxayna qasriga ku shideen dab. Taliyaha ciidanka boqortooyada ayaa si dhaqso ah u galay qasriga si uu usoo badbaadiyo Princess Mary, laakiin ninkii Gulliver la xirnaa oo Mary jecel ayaa ka dalbaday Gulliver inuu badbaadiyo Mary maxaa yeelay taliyaha iyo ciidankiisa waa kuwo aad u yaryar oo ma gaari karaan derbiga dheer ee qasriga gubanaya. Gulliver si fudud ayuu u wada dilay ciidankii weerarka soo qaaday oo dhan, waxa uuna badbaadiyey Princess Mary. intaasi kadibna Gulliver si xoog leh ayuu u garaacay dhismaha, xitaa waxa uu ku kaadiyey dhismaha si uu dabka u damiyo. dadka oo dhan ayaa aad ugu farxay wayna u sacabatumeen maadaama uu badbaadiyey boqortooyada oo dhan. waxaana muuqaalkan ka muuqanaya farqiga u dhexeeya isaga iyo dadka yaryarka ah ee jasiiradda ku nool. boqorka waxa uu ku dhawaaqay in Gulliver iyo saaxiibkiisba laga sii daayo xabsiga, waxa uuna uga mahad celiyey geesinimadooda. wuxuuna xitaa ku marti qaaday in habeenkaasi oo dhan ay cunto wada cunaan si uu uga mahad celiyo geesinimada uu sameeyey. taliyaha ciidanka aad ayuu uga carooday maadaama uu jecel yahay Princess Mary, waxa uuna ka xumaaday inuu arkay qof kale oo loo mahad celinayo isla markaana maamuus loo muujinayo. habeenkii marka la cunteeyey, boqorka waxa uu weydiiyey Gulliver meesha uu ka yimid, waxa uuna ku jawaabay inuu ka yimid New York. Gulliver markii ugu horeysay noloshiisa waxa uu dareemay inuu yahay geesi, markaas ayuu xoogaa faan ku daray isagoo sheeganaya inuu yahay madaxweynaha New York. dadka si fudud ayay ku aamineen. maalintii xigtayna waxay bilaabeen dadka jasiiradda ku nool ee yaryarka ah inay u dhisaan guri weyn maadaama uusan ku noolaan karin guryaha iyaga u dhisan. boqorkana waxa uu amray in la raadiyo doontii uu ku yimid Gulliver si loo ogaado xaqiiqda dhabta ah iyo qaabka uu jasiiradda kusoo gaaray. Gulliver ayaa sidoo kale ka dalbaday boqorka in loo dhiso tiyaatar weyn oo ku filan dadweynaha boqortooyada. waxa uuna halkaasi kusoo bandhigay markabkii Titanic isagoo ku faanaya inay ahayd sheekada noloshiisa. dadka oo dhan ayaa aad ula dhacay qisadiisa, waxayna la murugoodeen sheekada markabka. taliyaha ciidanka boqortooyada ayaa halkaasi yimid isagoo aad uga masiirsan waxa meesha ka soconaya, sababtoo ah taliyaha iyo Mary waxaa horey loo saadaalinayay islamarkaana la qorsheeyey inay isguursadaan maadaama taliyaha uu ahaa geesi aad loogu saadaalinayo inuu noqdo qofka guursan kara Princess Mary. dhanka kale, kooxdii loo diray inay soo raadiyaan doonta uu ku yimid Gulliver ayaa waxay soo heleen doontii iyo alaabo kale oo badda agteeda daadsan. cabitaanka biibsiga iyo xitaa moobaylka ayaa muuqaal ahaan aad uga weyn dadka yaryarka ah ee jasiiradda ku nool, waxayna aad ula yaabeen alaabta meesha taalla iyagoo xitaa bilaabay inay ku ciyaaraan cabitaanka biibsiga. Gulliver isna waxa uu tegayaa meesha ay doonta taallo, waxa uuna ka helayaa taleefankiisii oo wili shaqaynaya, waxaana taleefanka ugu soo dhacaya 12 cod oo fariin ah taasoo uga timid Darcy. waxayna Darcy aad uga xanaaqday kadib markii Gulliver uu horey u soo qaatay buuggii ay ku qorneed qaabka loo sameeyo robot, kaas oo hadda gacanta ugu jira boqortooyada. Gulliver marka uu dhageystay codkeeda waxa uu go'aansaday inuusan dib dambe ugu laaban New York isagoo aad uga cabsanaya inuu wajaho Darcy. sidaasi darteedna waxa uu go'aansaday in inta noloshiisa ka dhiman uu ku noolaado boqortooyada. taliyaha kuma faraxsana joogitaanka Gulliver, wuxuuna boqorka u sheegay inuusan ku kalsoonaan karin. boqorka wuu diiday isagoo u sheegaya inuu Gulliver yahay qof laysku halayn karo, waxa uuna u dallacsiiyey darajada generaal halka taliyaha laga dhigay ku-xigeenka Gulliver. taliyaha oo aad uga xun in Gulliver loo dallacsiiyey generaal ayaa waxa uu go'aansaday inuu damiyo nidaamka difaaca ee boqortooyada, taasoo sahashay in cadowgeeda ay fursad u helaan inay soo weeraraan. askarta boqortooyada deriskooda ah ayaa qorsheynaya inay si dhaqso ah usoo weeraraan jasiiradda si ay u qabsadaan. waxay kusoo dhowaadeen boqortooyada, badda dhexdeeda rasaas ayaa isqabsatay. Gulliver maadaama loo magacaabay generaal waxaa qasab ku ah inuu ka hortago weerarkan. isagoo lugeynaya ayuu dhexda ka galay biyaha, waxa uuna toos u aaday halka ay joogaan ciidanka kasoo horjeeda ee jasiiradda soo weeraray. rasaasta ay kusoo rideenna waxba kama goyso jirkiisa maadaama uu yahay qof aad u weyn. ugu dambeyntiina waxa uu ka guulaystay ciidanka weerarka soo qaaday, wuxuuna difaacay jasiiradda, waxaana loo dhisay taallo. sawiradiisa ayaa lagu dhejiyey magaalada oo dhan. ciidamo qaas ah ayaa loo qoondeeyey inay tinta u jaraan, iyadoo qaar kalena ay dushiisa ku gaardinayeen si ay ugu masaajeeyaan. taliyaha ayaa soo galay qolka
boqorkii Princess Mary isagoo sheegaya inuu xaq u leeyahay inuu iyada guursado, balse iyada waxay u sheegtay inaysan jeclayn. taliyaha oo ka xanaaqay hadalka Mary ayaa go'aansaday inuu caawiyo cadowga jasiiradda soo weeraray. waxa uuna helay buug sheegaya sida loo sameeyo robot, kaas oo uu Gulliver watay. isaga iyo kooxdiisa waxay go'aansadeen inay dhisaan robotka iyagoo adeegsanaya buuggan si ay Gulliver ula dagaalamaan. maalmo kadib Gulliver waxa uu taagan yahay taaladii isaga loo dhisay, wuxuuna isu diyaarinayaa inuu la dagaalamo ciidanka soo weeraraya jasiiradda. laakiin waxa uu la yaabay markii uu arkay robot weyn oo ciidanka ay wataan oo hortiisa taagan. Gulliver ma jirto waddo kale oo u furan oo aan ka ahayn inuu isdifaaco. waxa uu bilaabay inuu riixo robotka, balse waxaa ka xoog badiyey robotka. boqorka oo jasiiradda laga qabsaday isla markaana ogaaday in buugga robotka laga sameeyey uu watay Gulliver ayaa aad uga xanaaqay, waxa uuna ku eedeeyey khiyaano. taliyaha ayaa isagoo ka faa'iidaysanaya guuldarrada Gulliver ku amray ciidankiisa inay xiraan kadibna la geeyo jasiirad cidla ah. laakiin halkaasi waxaa ku xiran gabadhii uu jeclaa oo iyadana meesha timid iyadoo isaga ku raad joogta. maalintii xigtay Gulliver waxa uu go'aansaday inuu la dagaalamo ciidanka jasiiradda qabsaday. waxa uuna doonayaa in haddii uu guulaysto uu boqortooyada ku soo celiyo boqortooyadii isaga ku soo dhaweysay deegaanka. taliyaha oo robotka isticmaalaya ayaa ka xoog badinaya isla markaana istaaga ka ridaya. saaxiibkiisii isaga la xirnaa oo ah dadka yaryarka ah ayaa soo ordaya si uu u caawiyo Gulliver. waxa uuna isku dayayaa inuu robotka dhex galo isagoo jarjaraya xarkaha robotka, taas oo sababtay inuu robotka istaago. Gulliver si fudud ayuu isla markiiba u burburinayaa robotka. jacaylkiisa iyo dadka kaleba aad ayay ugu farxayaan. saaxiibkiisa yaraa ee caawiyeyna geesinimadiisa darteed waxaa loo guuriyey Princess Mary, waxaana sidaasi ku suura gashay inuu nabad dhex dhigo jasiiradaha iyo boqortooyooyinka iska soo horjeeday. ugu dambeynna waxa uu ku noqonayaa magaalada New York isaga oo wata saaxiibtiisii uu jeclaa, waxayna raacayaan doon qurux badan oo loogu sameeyey jasiiradda. toddobaadyo kadibna Gulliver waxa uu ka tegay shaqadii wargeyska, waxa uuna noqday qoraa caan ah oo wax ka qora safarada, kaas oo aad looga yaqaano magaalada New York. isaga iyo Darcyna waxay wadaageen xiriir jacayl. filinkana waxa uu ku soo dhamaanayaa iyagoo gacmaha is haysta oo ka baxaya xafiiska. haddaba haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan like saar kuna soo biir channelkeena adigoo subscribe taabanaya.